alaabtan haddaad timahaaga aa bartid oo hadda aa marisid muddo yaroo kooban timaha bixitaanka ay bilaabaan weligood ma joojinayaan. Waa alaab yaroo fudud oo cajiiba walaalahayga oo timaha bixinayso weliba si degdeg ah, timahana nafaqaynayso, timahana jileec madow xariir furfur halweyn ka dhigayso, timahana siibitaanka ka dhamaynayso. waa alaab cajiib walaalahayga oo hadda dhan walba ka dhameystiran. maasha Allah shaqada ee timaha iyo faa'iido u leedahay hadda halkan walaalahayga laguma soo koobi karo. insha Allah marka ka bogta video soo socdo waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno iyo sida. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabta ku xiran Najax Kitchen and Beauty soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin dhammaantiin ku soo dhawaada channelkeena Najax Kitchen and Beauty uga barateen isqurxinta dabiiciga. waa walaashina hadeeni sida cashar kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada sida title video ku saarteen qaybta hore video ku soo daawateen hadda wixii hadal ah qaybta u horeysa video-ga ayaan ku soo koobnay walaalahayga insha Allah. marka hadda maanta alaabtan cajiibka ayaan la share kareynayaa oo hadda timaha dheelatirayso maasha kana bogta walaalahayga video-ga soo socdo waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno alaabtan iyo sidaan u sameysanayno. bismillaah alaabtii ayaan sameysanaynaa walaalahayga timaha bixinaysay. marka hore walaalahayga waxaan soo qaatay weel alaabta aan iskula dardarsano ayaan soo qaatay walaalahayga. sidoo kale marka hore waxa u baahan tahay wax weelkarka waxa inoogu jiro waa qubka mooska ama qolofka mooska oo aan soo jarjaray oo hal xabba waaye walaalahayga. waa qolofkii mooska ayaan ku shubanay walaalahayga weelkii inoo diyaarsanaa. sidoo kale waxaan kale ku darsanaynaa waxa weelkarka waxa inoogu jiro waa dhagayaro waaye walaalahayga hal qaando dhagayara ayaan ku darsanay. sidoo kale waxa kale u baahan tahay waxa weelka inoogu jiro ayadana waxa waaye waa basal guduud qolfaheeda ama basal guduuda qolofkeeda kore waaye walaalahayga. dhowr xabo basal guduuda qolofkeedii ayaan waxaan ku shubanay hadda alaabteeni hore oo weelka inoogu jirto. sidoo kale waxaan kale ku darsanaynaa caleen ayaan ku darsanaynaa. caleentana waxaa la dhahaa walaalahayga waa caleen qalalan bay leaf ayaa la dhahaa. horeyna mar waa inuu tusay ayaan jeclaa waana taasaa walaalahayga bay leaf ayaa ku qoran bacdeeda waa taasaa meelaha supermarketyada ayaa lagu gadaa walaalahayga. caleentan bay leafka walaalahayga waa caleen cajiib ah timaha aad ay ugu fiican tahay timaha way bixisaa. waxaan kale ku darsanaynaa walaalahayga biyo ayaan ku darsanay hal galaas iyo half biyo ayaan ku darsanay alaabteeni walaalahayga. haddana waxaan ku daray halfkii ayaan ku daray markii hore galaas aan ku shubay haddana half ayaan ku shubay walaalahayga. marka hadda walaalahayga alaabtii gidigeed markii aan isku soo dardarsanay oo hadda biyihiina aan ugu dambeynta aan ku darsanay waan soo karkarinayaa alaabtan walaalahayga oo waxaan geynayaa xagga iyo dabka. markii aan soo kariyo ayaan isku soo noqonaynaa walaalahayga. waxaana alaabtan ku karinayaa muddo 7 daqiiqo ayaan ku karinayaa. markii hadda walaalahayga markii aan isku soo karkariyo ayaan isku soo noqonaynaa insha Allah. alaabta waxaa la rabaa biyahaas faraha badan inay soo dhuuqdo oo biyo yar oo qiyaas ay ku soo haraan sida biyo galaas halfkiisa oo kale insha Allah. alaabtii walaalahayga markii aan isku soo karkariyay hadda dabka waan ka soo dejiyay waa u jeedin sida ay u qaacayso biyihii halkii galaas iyo halfka ahaan walaalahayga way soo dhameysatay oo biyihii qiyaas ahaan hata waxa ku haray half camal ayaa ku haray galaas halfkiisa oo biyo ayaa ku haray. marka sidaas la rabaa inay ku noqoto biyaha faraha badan waxaa la rabaa alaabta inay dhuuqdo oo dhameysato galaaska halfkiisa camal qiyaas ahaan markay ku soo harto markaas oo kale dabka gadami. haatan walaalahayga waa miiranayna waxaan soo qaatay miira iyo weel yar qashinka ayaan iska reebeynaa. alaabta waxa u baahanaa haatan dheecaankeeda ama biyaheeda waxa waa alaabtii kale hadda waan ka soo baxsanay nafaqadii intii aan uga baahnayn. marka qashinka waa iska daadinaynaa walaalahayga biyahaas oo kaliya ayaa anaga markii hore u dan lahayn oo uga baahnayn. marka biyihiina waa ka soo baxsanay. waxaan kale ku darayaa walaalahayga waxa waaye waxa qaandada ku jira waa saliid waaye 2 qaando saliid xulba ayaan ku darsanay walaalahayga. meesha saliid xulbada ka isticmaalayo in saliid oo jeceshahay ayaad ku bedelan kartaa. alaabtii waxaan isdhex gelinayaa saliidii aan ku darnay ayaan isku qasayaa walaalahayga oo hadda si fiican isku dhex gelinayaa. alaabtii markii aan saliidii aan ku soo qasanay walaalahayga hadda sidaas ayay inoogu soo baxday alaabteeni fududeed oo timaha inoo bixinaysay. ugu dambeyntiina hadda alaabteeni waa inoo diyaar. haatan kaliya waxay u baahan tahay in hadda jag lagu siiyo timihii. marka sidee u isticmaalaysaa waxaad sameynaysaa marka hore alaabtaada diyaarsanaysaa. markii aad diyaarsatid alaabtan haddii aad heli kartid caaga yarka oo wax ka buufsamaan oo kale waad ku shubanaysaa. haddii kalena caagaas oo kale haddii aad heli karin oo kale caaga yarka oo biyaha cad laga cabo caafiga ayaa ku shubanaysaa afka ka duleelinaysaa. markii aad ka duleelisid ka bacdina hadda timaha ayaa alaabtan marinaysaa oo ku shubaysaa timaha meesha hadda salka ee lafta ee timaha ay ka soo baxaan ayaad alaabta marinaysaa oo ku shubaysaa. markii aad sidaas samaysid waa ku masaaj gareynaysaa timaha. markii aad ku masaaj gareysid timaha korkooda timaha dhinacyadooda timaha geesahooda timahoo dhan ayaad hadda alaabta ugu dambeynta
aa ku gadinaysaa oo ku shubaysaa. Marka aad ku shubtid ka bacdina timaha waad isku xiraysaa. markii aad isku xirtid bac yar ama koofida yarta oo loogu talagalay timaha in madax markii wax la mariyo kale la gashto ayaad la gashanaysaa. waxaad ku joogaysaa 40 daqiiqo 30 daqiiqo ayaa alaabtan timaha ku haynaysaa oo ku hurinaysaa. haddii aad hal saac jaanis u heli kartidna waa oo ka ayadana oo ku hayn kartaa. markii aad sidaas samaysid ka bacdina waad ka dhaqaysaa. markii alaabtii aad cabaar timaha ku hurisid waxaadna uga dhaqaysaa duubi shaambo ama nafaqo sidii u taqaan ama condition hair nafaqada timaha lagu dhaqo oo lagu raaciyo. haddii aad nafaqada haysin timaha waxaad iskaga raacinaysaa biyo yar ayaad iskaga dhaqaysaa oo xoogaa qandac ah. waxaa la rabaa alaabtan markii aad timaha ka dhaqtid oo ka meertid inta aad timaha qalajisid inaad timaha saliidaysid la rabaa. waliba aad ku shubtid saliid fiican oo nafaqo leh inaad timaha marisid la rabaa. alaabtana wiigi waxaad ka isticmaalaysaa 3 maalin ayaa wiigi ka marsanaysaa. 3 maalinna isku xijinaysid. maanta oo kale haddii aad marsid bariyo kale waa iska deena bari dambe ayaad marsanaysaa. muhiimadda waxaa la rabaa wiigi inaad 3 maalin alaabtan aad timaha marisid. haddii alaabtan aawdid muddo 1 bil ah oo si joogto ah u marisid timahaaga wiigiina hadda 3 maalin aad ku tuuratid hubaal timahaaga inay si degdeg ah kuugu baxayaan. waliba haddii dhabarka ka degan doonaan insha Allah isbedel weyn aad ka dareemi doontid timaha. hadda walaalahayga insha Allah alaabtan hadda yeelsanina ila soo tijaabiya alaabtan oo igala faa'iideysta. alaabtan hadda waxaan ka samaysanay alaabo cajiib oo xagga timaha aan lagu gaarin. haddii la dhaho waa lagu bixinayaa bixitaan ahaan maba lagu gaaro walaalahayga. alaabaha ka samaysan waxaa kamid ah mooska kamid ah. qubka mooska caadi ma walaalahayga timaha aad ayuu u bixiyaa vitamins badan wuu siiyaa timahana wuu israaciyaa wuu isku dheelatiraa. haddana sidoo kale waxaa kaloo kamid ah alaabtan alaabahan ka samaysanay qolofta basashana ayadana innaba caadi ma ahan. haddii basashi gudaheeda la isticmaalayo korkeedana qasab waa wixii gudihii laga raadinayo korkeedana way ku jiraan. basashana hadda xagga timaha bixitaanka laguma gaaro walaalahayga. sidoo kale waxaan kaloo ka samaysanay alaabtan dhagayara ayaa ku darsanay. dhagayarahana timaha aad ayuu u bixiyaa timahana madow ka dhigaa timahana wuu jilciyaa timahana hadda quruxu ka dhigaa walaalahayga caadi. hadda walaalahayga dhowr alaabooda isku dardarsanay haddii aan dhaho hala soo qaadanaya videoga nagu dheeraanayo insha Allah. marka haddii intaas oo alaabooda meesha iskugu tagtay sheenada marnaba lagama baaqan karo. faa'iidadeedana hadda waa iska cadaa soo maahan. marka ila soo tijaabiyo igula faa'iideysta. hadda waxaan kaga tagayaa sidaas nabadgelyo waa inoo kulanti dambe xiiso leh walaalahayga. videoga na sii share garee videoga haddii aad daawatidna like taan